كان وادي بنا الصوماليات ونيسان واحد دريال عافمادا وحنا حقوق كل يا أمة المسلمين تا وإلى هاي هنتي السيء هاي يكونوا ليهين وهالكاس وهاي هو يكونوا رايان لبنا الصوماليات ويا أمة المسلمين تا حقوق كل هاي waxaan taagnahay hoyga ay ka deganaayeen kaamka Tawakkal oo ku yaala degmada Caawdaaq halkan waxaa taagan aabihii dhalay dhibanaha Soomaaliyeed oo la yiraahdo Galad Caabi Axmed haya Galad ilmaan meeqa sano xanuunsanaa 8 sano 8 sano saas oo ah 8 sano saas oo wax caafimaad ma la geeyo dhakhtar ma la geeyo hantidii markaan ku beelay baan caafimaadkiisina maxaad ummadda muslimiinta u sheegaysaa ama caalamka ka codsanaysaa wixii islaam ah oo diir maxaa ku jiro inay inta aan ka harahayo oo ka samrayo ama uu ii kacayo inay wax igala qabtaan baaqaas wuxuu ku socdaa ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan hadda ka hor waa in la soo wadaagnay وماسيدان مر walba u dirin ummadda muslimiinta aanay isu tacaawinta la rabaa waad aragtaan waa dhibana Soomaaliyeed xuquuqna ummadda muslimiinta ku leeyahay insha Allah waxaan filayaa inaad gacan ka geysan doontaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.